bangi ugu horeeyay maadaama uu yahay inaad aragteen baa laga yaabaa luuqadda xataa Soomaaliya ilaa branchiyada kale meelaha kale ku leenahay baan ku darnay Addis Ababa tusaale ahaan branchyadan ka furnay iyo meelaha ka furnay Dirdhabe iyo Addis Ababa iyo waxa ku qoran bangiga Shabeelle oo af Soomaali ku qoran foomkiisa oo dhanna bangiga Shabeelle ku qoran oo meel walba ku yaala marka taana waxaan rajaynayaa inaanu dadka kala barno luuqadda mooyaane inaan luuqadda Soomaaliga aan hoos u dhigin sidoo kale dhammaan degmooyinka waxaa noo qorshaysan degmo walba inaanu ka dhisano xafiis annagu aan leenahay waxaa jira warqadaan u qornay dhammaan degmooyinka oo dhan dhul aan ku weydiisanay dhulna la siiyo inaan xafiiska standard isku mid ah dhammaan degmooyinka deegaanka oo dhan aan ka dhisno kadibna ay adeegii bangigu bixinayo nooc walba ha noqdaan maalgelin hadday tahay iyo hadday adeegyadii kale bangiga tahayba maxaa keenay in sheerka la kordhiyo si guud sheerka bangiga National Bank ayaa wuxuu kordhiyay bangiyada sheerarka laga rabo marka ilaa 5 bilyan oo bir waa inuu haystaa bangigu sheer isagu leeyahay shareholderada laga soo ururiyay waa inuu gaadhaa muddo loo qabtay lagu gaadhayo oo muddo 5 sano ah waa in lagu gaadhaa laakiin ka marka sheerkiisi halkii loo gaadho maadaama markii hore sheerarkii jiray 500 milyan 550 milyan ay ahaayeen sidii halkii loo gaadho waa in dadku ay sheer ku darsadaan bangiga talabaadna waa in ownershipkii hadda sheerka bangiga la furayo waxa loo furayaa dhammaan bulshadeena deegaanka lahaanshihii bangiga in la wada yeesho cid walba sheer inta soo darsata ay yeelato degmooyinkii oo dhan iyo deegaankii oo dhan u gaara iyadana la rabo oo muhiimad ah sababtoo ah markii hore team dadkii aasaasay ama ka shaqeeyay ama dadaal ku soo bixiyay markay sharcigii iyo bangigii keeneen dadkii kalena inay ka faa'iideystaan siyaalo badan uga faa'iideystaan markay adeegiisa ka faa'iideystaan sidoo kale inay ka faa'iideystaan inay bangiga mulkiilayaashiisa ay soo geli karaan oo sheer ku yeelan karaan baa iyadana meesha taala marka sababahaas hadda dadka in sheerka loogu furo oo keentay haddii la gaari waayo kolley ma rajaynayno inaan gaari weyno in ka badan baan rajaynaynaa intaanu macnaheedu ugu talagalay in ka badan sheer ah in la iibsan doono sababtoo ah bulshadeenu aad bay u danaynaysaa bangigan waa bangigii koowaad ee taariikhda ay Soomaali leedahay la asaaso marka nin walba inuu bangiga ama ha yaraato ama ha badnaatee sheer ku yeesho waa waajib waa wax inagana in saaran weey marka taana inay la waaydoon ma rajaynayno insha Allah lana wadaaga asxaabtaada faalladaadu waa muhiim Dagaaran Media waa saaxiibka dadweynaha